waxaa lagu tilmaamaa haweeneydan mid ka mid ah haweenka dambiilayaasha ah ee casrigan. waxa ay gashay dambiye waaweyn iyada oo doonaysay inay noqoto hooyo oo ay dhasho carruur. Istabales Karasanka waa haweeney xoog badan aad u caqli badan. waxay ku dhalatay dalka Spain 1978kii. intaa kadib waxa ay u soo guurtay dalka Mexico, halkaas ayay muddo kula noolay qoyskeeda. markii ay dhamaysatay waxbarashadeeda jaamacaddana waxay u soo hijrootay waddanka Jarmalka si ay halkaasi nolol kale uga bilowdo. inkastoo ay halkaasi markii ay joogtay si dhaqsiya u guulaysatay, haddana haweeneydaasi waxay ka cabanaysay kalinnimo. waqtiga aad u fara badan ayay ku bixisay inay ku fakarto inay ka dhabaydo riyadeeda doonitaanka inay mar un hooyo noqoto. haweeneydaasi waxay bilowday in ay gaarto riyadeeda oo ay guursato. waxa ay guursatay ninkii ugu horreeyey, ninkaas oo da ahaan 14 sano ka weynaa iyada. waxay u soo guurtay iyada iyo ninkeeda Holger caasimadda waddanka Austria ee Vienna. halkaas ayayna ka furatay meel lagu iibiyo jalaatada. sanad kadib waxaa isbeddeshay dabeecaddii ninkeeda Holger oo bilaabay inuu haweeneydan ula mucaamaloodo si aad u xun oo aad u khallafsan. inkastoo ay in badan isku daydo inay soo jiidato, waa ay u suurtageli weysay. waxa ay u qaaday caro iyo nacayb badan Holger, maxaa yeelay waxay aaminsaneed inuu u diidanaa in ay noqoto hooyo. dhibaatadii ayaa soo siyaaday. Istabeleza ayaa go'aansatay inay ka argoosato Holger. waxay ku dishay rasaas. waxay u gogoysay meydkiisa minshaar elektroonig ah si ay u cirib tirto haraadiga meydkiisana waxa ay ku riday mid ka mid ah konteenaradii jalaatada. intaa kadib waxay ku shubtay nooc ka mid ah shamiitada cad, waxayna ku qarisay thalaajo sare oo gurigeeda tiilay. maalmo yar kadib waxaa dib u soo laabatay noloshii iyo farxaddii Istabeleza. waxay bilowday in ay raadiso nin kale oo ay guursato si ay ilmo u dhasho. waqti gaaban kadib waxay heshay ujeedkeedii. waxayna guursatay nin kale. markii isna ay u dhali weysay carruur, isla sidii ayay u dishay. mar kale ayay Istabeleza guursatay nin kale. ninkaasi ayay kula noolaatay farxad iyo wanaag. dhowr bilood kadibna waxaa run noqotay riyadeedii ahayd inay carruur dhasho. laakiin farxaddaasi ma sii jirin muddo dheer. saacado kadib markii loo sheegay inay booliiska ayaa qabtay. kadib markii kooxda nadaafadda ay booliiska ku wargeliyeen in gurigeeda laga helay haraadiga jir bani aadan. baaritaan dheer kadib waxa ay qaratay in ay tahay dembigaa geystay. waxa ay sheegtay qiilkeeda ugu weyn inuu yahay in nimankaasi ay u diideen inay hooyo noqoto. waxay ku caanbaxday Istabeleza dilaagii jalaatada, waxaana lagu xukumay xabsi daa'in. markii ay dhashay canugii ay in badan rajaynaysa inay dhasho, waa laga qaaday waxaana loo qaaday dalka Spain si ay halkaas ugu hayaan waalidiinta.